waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u cadeeyo anigoo ka hadal qaadanayo warqadii ka soo baxday xafiiska Villa Soomaaliya ee madaxweynaha xilkiisa dhamaaday oo ugu saaray guddiga arinta Ikraan Tahliil taas waxay cadeyn u tahay in madaxweyne Farmaajo uusan diyaar u ahayn marnaba in ay Ikraan cadaalad hesho kiiskeedana uu maxkamadda ku dhamaado 3 bilood ku dhawaada laga jooga marnaba ma uusan ka hadlin madaxweynaha arinta Ikraan iyo meesha ay ku dambeysay iyo Ikraan waxa ku dhacay intaba in marka caawa uu dhaho guddiga u saaray iyadoo maxkamad dacwo la geeyay waalidka Ikraan ay dacweeyeen dad la tuhmaayay laguna tuhmaayay in Ikraan gacantooda ku dambeysay madaxweynaha caawa wuxuu isku cadeeyay kiiska Ikraan inuu asaga ku lug leeyahay ama marqaati uu ka yahay ama uu meel ku og yahay waxaana marqaati ka ah in uu caawa dhahayo waxa la soo magacaabaya taliyaha nabad sugidda wuxuu soo magacaabaya xubin baarta Ikraan nin asaga eedeysan oo la dhahayo waxaad keensataa qof eeda adiga lagu haysto ku baara keenso oo adiga yaani ku soo baara adduunka meel ay ka dhacdo ma jirto ummadda Soomaaliyeed marqaatiha ka ahaato ha ogaato awal waxaan isdhihi jirnaa waxaan madaxweynaha been ma laga sheegoyaa maalin kasta waxa la leeyahay madaxweynaha hortaagan arinta Ikraan caawa wuu cadeystay horena wuu u cadeystay dabcan markii uu taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir oo looga shakisnaa gabadha lagu tuhunsanaa kuna eedeysnaa oo maxkamadda dacwad ka taalay in uu ka dhigay taliyihii nabad sugidda ee dalka caawana marqaati labaad uu sameystay waalidka Ikraan mar walba waxay u baahan yihiin cadaaladdooduna maxkamaday geysteen maxkamadayna ka sugayaan madaxweyne Farmaajo hadii kiiskan uusan asaga ku lug lahayn hadii kiiskan asaga uusan ogeyn hadii uusan asaga amrin asaga madaxweynihii dalka ugu sareeyay ahaay haduusan asaga amrin muxuu ugu diidan yahay cadaalad ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa prime ministerka waalidka Ikraan aday kugu qanacsan yihiin ummadda Soomaaliyeedna aday kugu qanacsan yihiin kiiskan adiga u qaaday markay ooysay hooyo qaali adiga qaaday oo talaabo ka qaaday oo ka hadlay waxaan rabnaa maantana sidii shalay aad u qaaday kiiskan inaad u qaadid Ikraan waxay u baahan tahay cadaalad ummadda Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin cadaalad Ikraan meel ha lagu sheego haday dhimatana meedkeedii hala keeno haday nooshahayna hala keeno haddaan labadaba la hayninna dadkii aan tuhmayno oo maxkamadda la geeyay oo la dacweeyay maxkamad hala saaro meeshan guddi waa dhaaftay guddi meel loo saaro ma joogto hore guddiga loo saaray meeqa guddiga la saaray gobolka Banaadir la qarxiyay duqi magaalada ku dhintay iyo 4 agaasime iyo dad kale oo badan oo shaqaale ah guddiga loo saaray intee ku dambeeyeen madaxweyne guddigaas meeqa kiis ayaa guddi loo saaray lama madaxweynaha la weeraray hotel lagu weeraray banaanbaxayaal oo banaanbax silmi sameynayaan la weeraray guddiga loo saaray intee ku dambeeyeen arinta Ikraan guddi ma kaaga harayso madaxweynuhu guddi kaaga ma harayso maxkamadda gey nimanka saaxiibada ah nimanka aad xilka u magacawday maxkamadda gey maxkamadda ha soo cadeyso inaysan dambi lahayn markaasaan ku qancayna annagana intii Ikraan la weysanaa iyo markii ay soo dhacday message-kii SNTV lagu soo qoray lagu sheegay Ikraan inay al-shabaab u gacan gashay oo ay gooriyootay kadib madaxweyne Farmaajo laba talaabo waay oo uu qaadayo oo liddi ku ah kiiska Ikraan markii koobaad markii laga qaaday Fahad Yaasiin xilka uu diiday mana aqbalin in xilka laga qaado mar labaad haddana wuxuu magacaabay isla ninkii tuhmanayaasha ahaa oo kiiska loo haystay markii saddexaad waa caawa oo uu guddi u saaray arinta Ikraan markii uu waayay meel oo uga baxsado waxay noqonayaan marka intaan ka badan madaxweyne Farmaajo kiiskan asaga ku lug leh asaga in la dacweeyay noqonaysa waalidka Ikraanna waxay sameyn doonaan dacwad oo ay ku dacweyn doonaan in uu hor istaagay cadaaladii inuu hor istaagay asaga inuu dambiilayaasha asaga uu yaani uu asaga dugsiinayo oo asaga ka soo horeeyo marka qof kasta oo hada cadaalada diido in dad la eedeysanayaal ahna uu asaga difaac u noqdana hada asaga dambiga ku jiro asagana qayb laga eedeynaya dacwadana la furi doona haduu Ilaahay yiraahdo waalidka Ikraanna sidaas ay sameyn doonaan hadii talaabo kaleeto oo uu qaado madaxweynaha